madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa guriga ummadda ee magaalada Beijing ku soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wafdi uu hogaaminayo oo socdaal shaqo ku jooga dalka Shiinaha. kulanka ay labada madaxweyne yeesheen ayuu madaxweyne Xi Jinping ku ammaanay madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisa horumarkay ka gaareen dhinacyada dib u dhiska, dhaqaalaha iyo siyaasadda. madaxweyne Farmaajo ayaa ku bogaadiyay dhigiisa Shiinaha tallaabooyinka isbedel kale ee ku horumarinayo wadankiisa uu qaaday. Somalia firmly supports the Belt and Road Initiative that foster a strategic cooperative. Soomaaliya waxa ay si rasmi u taageersan tahay hindisaha qaab dhismeedka kaabayaasha dhaqaalaha kaasoo ku dhisan hab iskaashi saaxiibtinimo faa'iido badan oo aan rajeynayo inaan xubin firfircoon ka noqon doono. mudane madaxweyne, aragtidaada ku aadan dhismaha mustaqbal ay wadaagaan Afrika iyo Shiinaha ayuu shirka iskaashiga Afrika iyo Shiinuhu tusaale wanaagsan u yahay, taasoo muujinaysa sida Shiinaha ay uga go'an tahay in saaxiibtinimo laga wada faa'iido ay wadaagaan labada dhinac. waana mid aan rumaysanahay in shirka sanadkan uu noqon doono mid taariikhi ah oo heer cusub u fura iskaashiga Afrika iyo Shiinaha. It's my firm belief that this year's forum will be historic, bringing China and Africa cooperation to a new level. Xi Jinping, madaxweynaha Shiinaha ayaa ku tilmaamay Soomaaliya saaxiib uusan Shiinuhu ilaabi karin marka la eego kaalintii Soomaaliya ay ku lahayd in Shiinuhu uu dib ugu biiro golaha ammaanka ee qaramada midoobay. waxaana madaxweynaha Shiinuhu ku tilmaamay Soomaaliya dalkii ugu horeeyay ee bariga Afrika ee xiriir diblomaasiyad la yeesha dalka Shiinaha. gunaanadkii shirka labada dowladood ayuu Shiinuhu Soomaaliya ugu yaboohay dhaqaale lagu taageerayo amniga, gargaarka iyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya. halkan oo ah guriga ummadda ee Shiinaha waxa goordhow ku soo dhamaaday shir u dhaxeeya dawladaha Soomaaliya iyo Shiinaha oo ay kala hogaaminayaan labada madaxweyne ee labada dawladood iyadoo ay ku helinayeen wasiirro labada dhinac ka tirsan. shirka oo laga hadlay arrimo muhiim ah ayaa ugu dambeyn waxa lagu saxay heshiisyo dhaxalgal ah oo labada dawladood dhexmaray, kuwaas oo kala ah dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha oo ay kala sixdeen wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Shiinaha iyo waliba iskaashi dhinaca dhaqaalaha oo dhexmara labada dawladood oo iyana ay kala sixeen wasiirada ganacsiga ee labada dawladood. booqashada madaxweyne Farmaajo ee wadanka Shiinaha ayaa ifafaalo wanaagsan u ah kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo aan haysan shaqo, kuwaas oo la doonayo inay ka faa'iidaan mashaariicda horumarinta ee la doonayo in wadanka Shiinuhu uu ka hirgeliyo Soomaaliya mustaqbalka dhow. Ali Baasha Cabdullaahi, magaalada Beijing, wadanka China.